السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan. tusmadeena caafimaad ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa meelaha ugu muhiimsan ee laga cabiro dikaanka wadnaha ama garaaca wadnaha hadba sida loo yaqaan. inta aanan u gudagalin meelaha laga cabirayo dikaanka wadnaha, bal marka hore aan isla fahamno waa maxay pulse rate ama dikaanka wadnaha waa maxay. dikaanka wadnaha waxaa lagu qeexaa tirada anta jeer ee wadnuhu garaacmo hal daqiiqo oo kasta ama hal daqiiqo gudaheed. qofka caadiga ah oo caafimaadka qaba xaaladiisuna ay degan tahay normally waxaa laga rabaa garaac wadnihiisu inuu u dhaxeeyo 60 ilaa iyo 100 jeer halkii daqiiqo. ranjigaas wixii ka bata ama ka yaraada waxaa loo aqoonsan yahay abnormal heart rate. marka laga reebo dadka sida joogtada ah u sameeya exercise-ka ama jimicsiga, dadkaas ayaga ah garaac wadnahoodii normally uu ka yara hooseeyaa dadka aan jimicsiga badan ama jimicsiga joogtada ah aanan sameynin. qiyaastii 8 ilaa iyo 9 meel ayaa ugu muhiimsan meelaha laga cabiro dikaanka wadnaha. waxaana ka mid ah carotid artery pulse, brachial pulse, radial pulse, femoral pulse, popliteal artery pulse, posterior tibial artery pulse, dorsalis pedis pulse, and temporal artery pulse. carotid artery-ga anatomy ahaan wuxuu ku yaalaa dhuunta, gaar ahaan wuxuu dhacaa inta u dhaxaysa taraakeyaha ama habamareenka iyo muruqa loo yaqaano sternocleidomastoid. inta badan waxaa la cabiraa marka bukaanadu ay la soo daristo ama ay galaan xaaladaha aadka u halista badan sida heart attack iyo shock iyo wixii la midka ah. wuxuuna macluumaad naga siinayaa xaddiga dhiig ee soo gaaraya maskaxda. brachial artery wuxuu ku yaalaa areadan loo yaqaano antecubital fossa, gaar ahaan wuxuu yara xigaa dhanka gudaha ama medial side-ka gacanta. wuxuuna ka hooseeyaa muruqa loo yaqaano biceps brachii. badanaan waxaa la isticmaalaa marka la cabirayo cadaadiska dhiigga. sidoo kale waxaa lagu qiimeeyaa xaddiga dhiig ee soo gaaraya qaybaha hoose ee gacmaha. radial pulse waxaa laga cabiraa kala goyskan lagu magacaabo wrist joint qaybtiisa lateral side-ka, halkaasoo si sahlan loogu dareemi karo dikaanka halbowlaha loo yaqaano radial artery. si guud ahaan radial pulse wuxuu ka mid yahay meelaha ugu badan ee sida joogtada ah loogu cabiro dikaanka wadnaha. femoral artery anatomically wuxuu dhacaa saddexagalka loo yaqaano femoral triangle. inta badanna dikaankan waxaa la cabiraa marka bukaanadu ay galaan xaaladaha sida shoogga ama marka ay qabaan xanuunada ku dhaca wadnaha iyo xididada dhiigga. meelaha kale ee dikaanka wadnaha laga cabiro waxaa ka mid ah inkastoo kuwaan si zaa'id ah loo isticmaalin popliteal fossa oo ku taala jilibka gadaashiisa. waxaana halkan mara halbowlaha loo yaqaano popliteal artery. waxaa sidoo kale ka mid ah posterior tibial artery pulse oo ku yaala qaybta dambe ee qoobka, iyo dorsalis pedis artery oo asagana laga helo ama laga cabiro inta u dhaxaysa suulka iyo farta dheer ee suulka ku xigta. halkaas ayaan kusoo koobaynaa tusmadeena maanta.